Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maalinta 17-ka Ramadaan waa maalin muslimiinta si guud ugu ah maalin taariikhi ah oo waa maalintii Ilaah guusha ku siiyay dagaalkii Badar. Si gaar ahna waa maalinta loo asteeyay maalinta shuhadada Ahlusunna wal Jamaaca ee Soomaaliya. Magaaladu waa magaalada Gurceel. Xafladuna waa xaflad aad iyo aad loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan. Xafladda waxaa lagu xusahayaa ama lagu xusuusanahayaa oo loogu duceynayaa shuhadadii ku baxay jihaadkii ay la galeen khawaarijta Al-Shabaab. Nabadda gobolada dhexe ama Galmudug maanta ku naaloonayaan shuhadada ayaa u sabab ah. Xafladda shuhadada markii ay sii dhammaanaysay ayaa dhagarqabe miinaysnaa naftiisa iyo tan culummada iyo mas-uuliyiinta iyo shacabka inuu haligana la soo shir tagay ayaa wuxuu ku yidhi askarigii sida gaarka ah culummada iyo mas-uuliyiinta u waardiyeynayay, waxaan soo jeedinayaa gabay. Isla markiiba askarigii fiirada, tababarka iyo taageerada alle haystay ayaa gartay in dhagarqabuhu wax kale maagan yahay, wuxuuna ka qabtay gacmaha uuna ka hayay ilaa culummada iyo mas-uuliyiinta meesha ka baxayeen oo ay ka imaanayeen ciidanka miinooyinka qaabilsan. Askarigii arrinta taariikhiga ah sameeyey oo ah arrin aan weli Soomaaliya hore uga dhicin, in la qabto qof isqarxi raba nolosha lagu qabto, waa arrin taariikhi ah oo taariikhda gobolada dhexe baal dahab ah ka gashay ama taariikhda Ahlusunna wal Jamaaca. Askariga wuxuu mudan yahay in bilad dahab ah la guddoonsiiyo. asaga oo ka sheekeynayo arrinka wuxuu yidhi: bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. magacaygu waa Axmed Xuseen Diiriye, maadhaar joojooda. waxaan ka mid ahaa ciidamada Galmudug, qaas ahaan ciidamada madaxa xukuumadda Galmudug Dr. Shaakir Cali Xasan oo ilaalada khaaska ah ayaan ka mid ahay aniga. waxaan mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasii joogaan sidii nagu dhiirigeliyeen amniga sugidiisa ay noola qayb qaateen. si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa shacabka degmada Gurceel sidii nagula qayb qaateen dhagarqabihii maleegayay qaraxa inaan gacanta ku dhigno. waxaan leeyahay maadaama gaarto, waxaan rabaa wax yar inaan ka sheego si iigu suurto gashay dhagarqabihii qaraxa maleegayay saan u qabtay. anigu waxaan ahay ilaalada koowaad. markii ay dhammaatay xalfadii dhammaadkeedii ay tahay sii dhammaahaydo oo dhagarqabahan ii yimid wuxuuna u yidhi waxaan soo jeedinayaa gabay. xalfadii dhammaan rabtay uu yidhi gabay waan soo jeedinayaa. Ugu dambeyn, Allah ayaa mahad ku leh badbaadinta qaraxa la soo abaabulay ee dhicisoobay uu ka badbaadiyey culummada, ciidanka, mas-uuliyiinta iyo shacabka Galmudug. sidoo kale culummada Ahlusunna wal Jamaaca ayaan uga mahad celinaynaa sameynta ee Galmudug u sameeyeen ciidanka ugu tayada badan Soomaaliya dhanka akhlaaqda, oo ma ahan ciidan daroogo isticmaala, iyo dhanka dagaalka iyo dhanka ka hortagga cadawga. waa ciidanka ka hortagay khawaarijta Al-Shabaab ama ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed u taagan. wabilaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.